salaan kadib waxaa ilaa mahadiya maanta shirkii wadatashiga ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu dhammaan ugu casumay in maanta si wanaagsan uu ku soo gabagabo isagoo socday muddo 9 cisho ku dhawaad ah ajandayaashii meesha ku qornaa ee wasiirka arrimaha gudaha uu ka aqriyay waxaa farxad weyn aniga ii ah khudbadii maalintii ugu horeysay qayb ka mid aan iri Soomaaliya waa la nabadeyn karaa laakiin waa haddii ay daacadnimo jirto oo hadalkii ugu dambeeyay aan ka iri haddii ay siyaasadda ma mideyn karnaa maanta waxaa muuqata midnimo siyaasadeed aan communique-ga soo baxay heshiiska halkan lagu saxiixday midnimada siyaasadeed ilaahay idinkiisa waxa ilaahay ka rajaynaynaa annagana mas'uuliyadna saaran tahay inaan u turjino ficil oo ay ficil noqoto maadaama ummadda Soomaaliyeed oo malaayiin qof ay ina sugayso oo annaga ay maanta aan ka war dhowrayso waxa meeshan ka soo baxayo ka soo bixida waxa ka muhiimsan in ilaahay idinkiisa oo rajadaas nagu jirtay midnimada hadda naga muuqata dhamaanteen intana hortaale ee mas'uuliyadda ah inaan u turjino ficil maadaama bini'aadankana ayna xisaabanayaan ilaahay nala xisaabtami doono inta kadib waxaan leeyahay waxa sharaf noo ah mar kale haddii aan nahay gobolka Banaadir iyo caasimadii dalka ee hooyadii dalka inaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku soo dhaweeyno idin iraahdo ku soo dhawaada gurigiina aad iyo aad ay u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamaya dhammaantiin ugu horeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu sharaf weyn bay noo tahay maanta halkaan ku saxiixino heshiiskii iyo wada hadaladii socday muddada usbuuca ka badan oo runtii ku soo dhammaaday wanaag arrimo badan oo runtii muhiim dalka wahaana laga wada hadlay ugu horeyso arrinta siyaasadda amniga dastuurka iyo federaaleynta dalka sida uu wasiirku akhriyayba dhammaantoodna runtii aan ka gaaray heshiis wanaagsan muwaafaqo wanaagsan aan is leenahay waxayna siinaysaa fursad aan hore ugu soconno dalkana ugu adeegno si wada jir ah niyad sami ah soomaalinimo ah wanaag uu ku jiro waxaan runtii uu ahaa shirkaan is leeyahay shir muhiim ah caddaynayana in Soomaaliya maanta ay tashatay rabtana inay hore u socoto dalka iyo dadkana loo adeego iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo wuxuu dhimi karaa midnimadeena iyo wada jirkeena waxaan ku heshiinay wada shaqayn waxaan ku heshiinay in waxaa la yiraahdo dowladaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee dowladnimada ama noqoto sharci dejinta ama noqoto fulinta ama maxkamad waxa la yiraahdaa cadaaladda si wada jir in loo shaqeeyo aragtimidana lagu wada shaqeeyo waxaanu go'aan ku gaaray in Soomaaliya sida hadda ay tahay aysan ahaan karinin dalkana uu u baahan yahay xoreyn u baahan yahay runtii wixii hore loo sameyn jiray haddii dee lagu sii socdo waxay ila tahay wixii awal bar heli jiray la helaya marka inaanu raahno marka dalka aan ka sugno amisom inay dalka noo xoreyso waxay ila tahay waxaan go'aan ku gaaray inaysan ahayn arrin sax ah in la fahmo in Soomaaliya ay Soomaaliya leedahay Soomaaliyana ay Soomaaliya xoreyn karto cidii kale oo nala joogtahay waa unta kulayn iyo support laakiin in la fahmo aan islana garanno in dalkaani dad leeyahay dadkiisuna anaga ay yihiin ilaa anagu aanu marka goosanno inaanu xoreyno oo aanu xasilino oo nabadayno oo dowladayno in aysan ahaan karinin sida kale weeye waxaanu go'aan ku gaaray in aan fariin u dirno cadowga iyaga shabaab oo ah Soomaali weeye haddii wanaagsanaadana soo hanuuna alxamdulillah haddii kale in Soomaaliya ay tashatay maanta farna ay tahay meel la wada socoto diyaarna u tahay dalkeeda inay ay xoreyso sida arrimaha kale oo dee runtii aad loo qaada dhigay ay ka mid ahayd arrimaha siyaasaddu in dalku uu helo xasilooni siyaasadeed unless ama haddii dalku uusan helinin deganaansho iyo xasilooni siyaasadeed cadowna kama hortegi karno cadowna kama guuleysanayno dalkuna horumar ma gaari karo marka in lagu dadaalo in aanu dalka xasilino sanad walba 4 sano يعني maxaa la yiraahdaa teeran walba in 4 sano naga dhunto
macnaheedu waxaa weeye waxaanu mortgage garaynaynaa oo aanu iibsanaynaa oo aanu cunaynaa mustaqbalka 4 sano ee jiilasha soo socda jiilasha soo socda minad waxaa weeye waxaanu isticmaalaynaa dad hadda aan nala joogin aan fikir ku lahayn aragti ku lahayn go'aamada aan gaarayno marka go'aanka aan gaarayno iyagu waxba kuma laha laakiin wuxuu ku leeyahay saameyn xoog leh jiilasha soo socda go'aamadoodan hadda gaaraynaa waqtigoodii baanu cunaynaa marka in aanu u danayno isu danayno annagu u danayno mustaqbalkeena u danayno dhallinyaradeenna iyo jiilasha soo socda ayaanu runtii go-aan ku gaaray taasaanu ku wada shaqaynayna aada iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo khayr ayaan rajaynaya soomaaliya waa mahadsantihiin bismi illaahi raxmaani raxiim ra-iisul wasaaraha xildhibaanada labada gole inta nagala joogta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed marti sharafta mudanayaal marweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinkaga mahad celinayaa sidii habsamida lahayd ee aad noogala soo qayb gasheen shirka wadatashiga ahaa ee maalmahan inoo socday maanta waxaan u fadhinaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha ka soo baxay wadatashigii aan isugu nimid waxaan isugu nimid inaan tashanno waxaan isugu nimid inaan mas'uuliyadda iyo xilka ay nasaaran oo ummadda naga sugayaan aan u fulino ama u gudano si waafaqsan danaha dalka dadka iyo diinta marxaladda aan haatan aan ku sugannahay inooma saamaxayso kala qaybsanaan kalsooni darro iyo kala shaki dalkani maanta wuxuu nooga baahan yahay badbaado dadkeedna waxay naga dhowrayaan ama naga sugayaan inaan ku hogaaminno waddo saxa sidaas darteed waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay inaan is-aaminno oo aan ka wada shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa kuwa shacabkeenna maalin walba xasuuqaya oo ay ugu dambaysay falalkii bahalnimada lahaa ee waxashnimada lahayd ay ka geysteen Zoobe iyo Naasahablood musiibadaani waxay soo jirtay muddo 10 sano ah sanad walba iyo maalin walba bil walbana waxay naga leynayeen ama naga xasuuqayeen shacabkeen iyagoo dhan marna u abayeelin inuu shacabkaasi ay yihiin dad shaqaalaha iyo dawlad waxay muujisay inay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxay naga laayeen dad aad iyo aad u fara badan musiibadii October 14keedii runtii waana wada taabatay bacdama ay laayeen hal goob ay ku laayeen dad gaaray 400 dad 400 kor u dhaafayna ku dhaawaceen waa xaqiiqo waa culays iyo musiibo aad iyo aad u xun oo kulligeen nabada kicisay oo nabada taabatay laakiin inta ay nagu sameynayeen wax sahlan ma ahayn markaan midna ka soo qaadano sanadkii la soo dhaafay ee 2016 waxay geysteen konton wax kor u dhaafayo qaraxyo ah waxay laayeen oo sida ay u laayeen kuwii hadda ugu dambeeyay musiibooyinka ugu dambeeyay ku laayeen dad gaaraya kun haddana istaagi maayaan haddaynan u istaagin oo aynan ka hor imaan ka dawlad ahaan iyo shacab ahaan sida hadda ka muuqata fadhigeenna iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo oo musiibadii dhacday yaa waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo sida ay nooga go'an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii soconno laakiin intaas kuma filna waxaan doonaynaa inaan u turjino ficil oo aan fulino qorshaha amniga oo aan dhigannay iyo midka siyaasadda si aan u horumarino dhaqaalaha dalka qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadanay istaraatiijiyad iyo qorshe midaysan iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka dalka
dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha wali gacanta ugu jira shabaab hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka culimada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugeynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah in cadeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn abwaaniinta iyo suugaanada ama fanaaniinta waxaan ka rabnaa inay bulshada gubaabiyaan guud ahaan qof walba waa inuu kaalintiisa ka soo dhalaalo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh